عليكم ورحمة الله. هذا جيمك قال ربنا ما أنت وحاولنا ننعصب والله ده عبد فارح سلامتي تذكر وين السلام الريرة يوتيوب يوحي يوتيوب كحرنا دبا يو قرابو فريندز ninkan wuxuu ku jiraa dadka aad tareenayo waa nin la diyaarin rabo professional in laga dhigo imsaa wada jim هذا أسبوع له وضعه may kii hore dhigan jirta كيورا أفر بالله qabaan la tagi jirta afarta bil لو مالين wiig laba maalin oo tagi jira عاجز يخرج سوما hadda anuu igu soo biiray anaa tareenay garaysi rabo isbuucan hal maalin ma ka dhicin soo maha الله هيك الله حقان ما قدع موانته نين سديسي أنا هاي suu halkan marka ani igu soo biiray waxaa hal maalin jiibka uu ka dhicin hadda wixii ka dambeeya waxaa laga dhigi rabaa maxaa la lahaa هذا حنصعد pro سوما body builder نين كاست انترسو هاي نصعد سوما صح أوريدي كلي بس كتيجي ترى هالبران قادو عاجز حافظ هروب أدابت haddana waxaa taagantaa هذا waxaa ma بسم الله jira الرحمن الرحيم هذا موانته maanta fresh ma tahay هذا حروينا دتك حوق الله ترتو هذا حروينا سكها برا شابت مال horta مكبر markaa halkan kusoo birtay iyo trainingkii hore xagga different ma u dhexeeya farq هذا الكيلو دريتو يقدر سنتاي به hal kiilo ku darsanta week xataa toos ma dhamo 5 maalin 6 maalin aad wadnaa هذا السبب بدك العنف في عمود بلا سوما hay cunada horta wax nooga sheeg cunada wax nooga sheeg dad badan ay weydiiyeen markaa kiilooyin isku daray cuno nooc cunta maxaa cunta aad u sheeg dadka عنت وعاود قرت ودي بدك waxba ha dhaafin de وحبا دافن أبت haya بحالة ده هاي سرينك بس سرينك sareenka badso sareenka u sheeg maxaa la sareen سرين وأمر كذا عنت ده الغص حورت معك تلقى حورت معك sareen hilib salama dhaho هو نيف جيل هلو كيس neef geel hilibkiisa يا kaas maxaa كادتشي ده أبت وحول بعد دافن ده waxa dhaafin ninkan waxa waaye dadka maxaa والله حكون مهما ده حنكون عنب waxaan hoos nooga dhig وحنكون عنب بالله عنا waxaa ku cuna waa la cunaa yiri ninkan marka adii xikaawriye ma dabadich mid kale dadka oo Allah baa ugu qabatay waxa uu joojinaabta mid kale hardgainerka oo dadka kiilooyinka ku darsamin ninkan dadkaas waa jirkiisa ciyo kiilooyin ma ku darsamaan marka wuxuu ku khasbay inuu wax badan cuno waxaa filayaa bil soo socda ninka inaan diyaarino ilaa 4 kiilo bishan soo socota ku darno insha Allah adna haddii aad u baahan tahay training nala soo xiriir ila soo xiriir insha Allah waa lagu trainay garaysiinayaa haddii aad saacateynaysid haddii aad kiilooyin isku daraysid waxoo idil waa lagu trainay garaysiinayaa hamuugaan hadda jimka ayaa galeena maanta waxaa traineynaa xawadka kore gacmaha fuul ah iyo delt garabka halkan kore okay almiitada ayaa bilaabnay almiitada ayaa wax yar faahfaahin iga bixinayaa almiitadan waa aragteen mar aan noo sameynaya filayaa soo almiitadan waxay taageeraysaa khaasatan xawadka qeybtiisa kore mar badanna waan ii sheegay haddii xawadkaaga inuu qurxanaado rabtid xawadka kore taraynaysi hadduu xawadkaaga inuu weynaado rabtid waxaa sameysaa bench press mid la hayo xawadkaaga way weyneynaysaa midaas laakiin midan xawadka qaybta kore ay qurxinaysaa weyna weyneynaysaa soo waxaa filaya qof walba qurux ayuu rabaa weynin zaa'id ama la rabo ninkan soo nin sheegayba 4 bil ayuu hore u taraynayay laakiin 4 bilo oo wiigi hal mar 2 mar gym kala tagay ahayd hadda wiigi isbuuc ayuu la taraynayaa saa arkaysaan kiilooyinku qaaday way kordhayaan anigoo waxaa kiilooyinka kusii kordhiyay 25 ayaa aaday sababtoo ah 3 set kaliya ayaa ka sameynaya filayaa midan markaa sameynayso waxaa hubisaa gacmahaaga inay tartiib u imaanayaan kadib tartiib ay kor u tagayaan sababtoo ah wejigaaga ayay ku aadan tahay wejigaaga waa intaasoo ku dhacdaa oo aragteen ninkan kiilooyinkaasna uu kordhiyay marka dadka aad tareeneynaya badankood labada isbuuc ugu horeysa waxaa hubiyaa inay kiilooyin kordhiyaan ayaga miisaan ha ku darsamo ama kiilooyinka ay qaadayaan ha kordhaan so intaas ayaa make sure ka dhigaa sababtoo ah qofka marku bisha ugu horeysa duu natiijo arka inuu niyajabo way adag tahay marka waxaa ka ilaaliya dadka inay niyajabaan midan ayaa u gudubnay waa arkaysaan ayadana dumbbell waxaa waaye incline ayadana xawadka kore ayay target garaysaa laakiin midan xawadka koro idil ayay target garaynaysaa ilaa xawadka hoose ayaa kasoo galaysa so ayadana waa sameynay 3 set ayaa ka dhahnaa filayaa waxba culus zaa'id ninkan weli looma dhiibin waqtigiisa waa la gaari doonaa insha Allah laakiin markuu imaanayay 10 ayuu rafanay hadeertan waxaa waye 15 20 waa la saacideynayaa 15 kaligiis ayaa dafaya marka insha Allah caawinaada ama
coaching haddaa u baahan tahay bib isoo dheh. waa arkaysa aniga way igu yaro cuslaatay sababta kiilooyin culus ayaa tagay, laakiin weli waa qaaday ilaa 8 ilaa 9 ayaa ka dhahayay, so zaaid uma cusleen. hadduu weydku zaaid culus waxaa lagu garanaya 5 ama 6 ka badan ma dhihi karaysid, laakiin saa arkaysa 7 ilaa 8 ayaa dhahaya. waxa u gudubnay maxaa la dhahaa garabkii aan ii sheegay. okay, garabka geesihiisa sidan ayaa loo trainaysiyaa, delta allaha englishka ama deltoid. garabka 3 qayb ayaa loo qaybiyaa. qaybta hore garabka oo gacanta ku aadan, muruqa bicepka ku aadan, qaybta dambe ee geeska haddaan sameynayno oo deltoid ayna la dhaho, iyo qaybtan gadaale qoorta iyo waxa isku xirta. so hadda waxa kaliya aan sameynayno waxaa waa qaybtan garbaha geeska xigta. waxaa muhiim ah inaa weight aa qaadi kartid qabsatid. waxaa aragtid badan oo kiilooyin culus qaadaya oo form khaldan ku qaadaya, formkooda uu khaldan yahay, garabka way dhaawici karaysaa. marka garabna haddaa dhaawacayso waa ognahay gym way kaaga dhamaatay, sababtoo ah garbaha waa qaybta ugu muhiimsan markii xawad aad sameynaysid logo markii aad dhawr sameynaysid. okay, waa midii hore 3 ayaa ka dhahnay kulli moodo duubin, so moodo duubi karin waxaa socday waqtin uma haynin. ayadoo fadhi ayaa u gudubnay, laakiin wax yar way ka duwan tahay midii hore. saa arkaysaan 2 nooc ayaa loo sameynayaa, so ayadana waa sameynay. garbaha qaybtan waxaa ka niraafaleynaya 3 inaa dhahnaa maleynaya, laakiin kiilooyin culus ma qaadin. saan ii sheegay kiilooyin culus ma wanaagsano midan sameynaysid. mar walba waxaa isku daydaa inaad qabsatid kiilooyin dhexdhexaad ah. waxaa kasii wanaagsan inaad kiilooyin fudud qabsatid, sababtoo ah garabkan uma baahnid wax culus inaad qaadid. so be careful markaa midan sameynaysid, garbaha ka taxadar. isku day inaa jirkaaga wada fadhiyo, ama markaa taagan tahay jirkaaga straight uu taagan yahay. intaas ayuu noqon doonaa videogan insha allah. subscribe, like, asxaabta la wada.